kooxda kubadda cagta ee ciidanka asluubta ayaa galabta laba iyo waxba waxa ay ku garaaceen dhigooda kooxda kubadda cagta ee wasaaradda biyaha. Ciyaar adagoo labada kooxood ku dhex mara garoonka weyn ee Hargeysa Stadium ayaa waxaa halkaasi 3 dhibcood oo nadiif ay ka qaadatay kooxda ciidanka asluubta, kuwaas oo aan wax gool ah laga dhalin, waxaana ay ciyaartani ay ka mid ahayd tartanka heerka koowaad ee horyaalada Somaliland. natiijada kadib ayaa waxaa astaan Cable Sports la hadlay macalinka kooxda ciidanka asluubta iyo waliba kabtanka kooxdaasi. kooxda la ciyaarina waa koox aad u daayar oo koox aad u fiicnaa bahayd kulli labada kooxood mid baa guuleystaa, laakiin rajada aan ka qabo koobkan insha Allah billahi kariim waxaan ka qabaa inaan ku hogaamin doono seasonkan insha Allah billahi kariim. waxaan rajaynayaa kooxda u rajaynayaa in aanu insha Allah halka ka sii wado doono guulaha oo aanu 3 wal oo dhibcood iyo maalin ciyaarna baan ku xisaabtami doono 3 points kalkaan ka yeelno. aadna waan idinku mahadnaqayaa. sidoo kale waxaa isna dhinaciisa Star Sports la hadlay kabtanka kooxda wasaaradda biyaha, kaasoo sheegay in guuldarada kooxdiisa aysan noqon doonin mid hoos u dhigta kooxda wasaaradda biyaha, waxaana uu tilmaamay in rajo weyn ay ka qabaan in tartankani ay meel wanaagsan ay yimaadaan. waxaan rajaynaynaa insha Allah kulanka quruxda badan ee guuldarada waxa weeyaan aanu kala kulanay dhigayga ciidanka asluubta anagoo u hambalyeynayna kooxda ciidanka asluubta inaanu insha Allah tacaala kulamada dambe 17 kulan baan noo haray, hal kulan baa waxa weeyaan na dhaafay. waxaan rajaynaynaa halka kulan inuu 10 noo noqon doono haddii Ilaahay ka dhigo. waa maalintii saddexaad ama galabtii saddexaad ee daawadayaal ay garoonkani weyn ee Hargeysa Stadium ay ka dhacayaan ciyaaraha kala duwan ee horyaalada Somaliland oo markaasi kooxu ay asaarkeen. waxaa la filayaa in Britain markaasi ciyaar tan la mid ah halkan la isugu yimaado. Star Sports waxay diyaar u tahay in guud ahaan inta ay socdaan ciyaaraha horyaalada kala duwan ama heerka koowaad, kan labaad iyo kan saddexaad in mar walba ay si joogto ah idinku soo gudbiso. Cabdinaasir Socdaal, Star Sports, Hargeysa Stadium.